dowladnimada loo maamulayay dadka reer Puntland waxay goosteen in ay dib dam ugu dhicin nabarkaas oo kale waxay goosteen inay dadkooda maamulaan isna maamulaan Soomaalina ay raadiyaan intii ka horeysay Puntland intaan la dhisin waxay madaxdii Puntland markaa jirtay ay jeclayd iyadoo Puntland la dhismin si gaar ah in Soomaali intay madal isugu timaado nidaam ay heshiis ku tahay dhisato markay aragtay inay suuroobi weyday waxay goosteen inay Puntland ay aasaasaan maadaama xaaladaas markii lagu jiray ahayd xaalad ay u muuqatay in kol dhow aan laga baxayn oo waqti ay u baahan tahay saasa horta saldhigga Puntland ay ku aasaasantay laga bilaabo 98 oo 22 sano laga soo joogo wax waa ka qalqaloocdeen ama waxyaabo la rabay in laga helo lagama helin duruufo kala duwan oo jiray darteed laakiin dariiqii markaa la jeexay marna Puntland kama leexan oo ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo nidaam dawladeed oo federaal ku dhisan oo ummadan u horseeda inay dib dambe burbur uga dhicin dabcan dawladda aniga madaxda ka ahay iyadoo kaashanaysa taariikhdaas iyo qoraaladaas iyo hab socodkaas iyo dastuurkaas iyo xeerarka kale oo weheliya iyo laamaheeda kala duwan ee dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn ee BRDC ugu horeysay ee aqoonyahanka kale waxay ku dadaalaysay in wadadaas intii la kari kara la hayo iyadoo loola dhaqmayo dadka kale ee reer Puntland hayna sidii ra'yigaas ay la qaateen markii dambe 2004 ee federalismka waxa ka dhiman ee qabyada ay ugu wada shaqeyn lahayn waxaan rabaa dadka reer Puntland inay si fiican u fahmaan waliba jiilka soo koraya dawladdan hawadeeda kuma shaqeyn karto wixii la quman iskama qaadan karto dariiq loo jaxay oo dastuur ay mar walba ku socota waxaan rajaynayaa marka dadka maadaama aqoonti korodhay aqoon kasta oo la rabo in la gaaro haday reference lahayn meel ay raacayso waxa ka dhasha khaladaad badan oo u baahan la saxo dabcan arrimahaas waxaan u xusayaa xaaladda dalku maanta ku jiro waa xaalad u baahan dadka waxgaradka mar labaad inay dul istaagaan oo aysan ka leexan toobiyihii Puntland ku kalifay inay aasaastaan oo aysan ka leexan toobiyihii ay rabeen inay Soomaali sharafteeda iyo karaamadeeda iyo dawladnimadeeda ku soo celiyaan dabcan wixii tagay qaybna goobjoog baa u ahaydeen inta aan goobjoog u ahayn dabcan taariikh bay ku haysaa laakiin labadii sano hadda u dambeeyay oo xukuumaddan cusub ay jirtay Puntland waxay la soo kulantay caqabado aad u fara badan iyo dalkii oo dastuurkii Puntland iyo kii Soomaaliyaba uu u muuqdo inuu ka leexanayo waxay la soo kulantay xilli la goostay in nidaamka federalismka meesha laga saaro waxay la soo kulantay xilli lagu talagalay dalka ciidamadiisa in loo diyaariyo si ka duwan sidii heshiiska lagu ahaa waxay la soo kulantay xilli adduunyada qaybteed lagu qanciyay habka dawladnimada loo maamulayay ee ahaa in hoos laga soo dhiso oo dalku kor isugu yimaado ama waxa loo yaqaan building block laga tagay oo lagu qanciyay wadamada qaybtooda deeq-bixiyaasha si Soomaali u dhisanto in centerka la dhiso si waxyaabaha periphery-ga la yiraahdo loo aadiyo oo loo soo xareeyo oo ay u ogolaadaan dawladda dhexe inay raacaan haddii taas Soomaaliya ay dan moodayso waxay ahayd in laga tashado laakiin wixii lagu heshiiyay waxaan ahayn qofkii isku daya inuu ama dad ku qanciyo dhaqaalahaya ama kuwa sidaas dantooda ku jirta ee dawladda oo dhaqaalo uga helo oo dalka sida u maamulo dabcan Puntland oo ilaahay duruuf gaar ah oo ka wanaagsan deegaano badan oo Soomaaliya ka jira leh haday garan weydo in wixii lagu heshiiyay ay ilaaliso waxa ka dhalanaya
mas-uuliyad darro dadka mas-uuliyiinta ay markaas haysaas hayana waxay u muuqanayaan dad aanan fulin wixii laga sugayay waxaan rabaa inaan aad ugu dheeraan waxa Soomaaliya ka qaldamay oo ka khalloocday oo aan filayo inay maalmo badan u baahan tahay si dad badan oo aanan arki karin xaqiiqada jirta ay u arkaan laakiin waxaan aad uga rajaynayaa aqoon-yahanka iyo hay'addan cilmi baarista iyo dadka jaamacadaha dhigay iyagu inay intay baaritaan ka sameeyaan dadka ay u sheegaan maadaama waqtigeyguna uu yar yahay waxaan rabaa inaan nuxurada muhiimka ah aan dul istaago si loo ilaaliyo socodka dawladnimada ama dawlad dhiska socodkeeda waxaa waayadan saldhigyada ugu muhiimsan ka mid ah si dadka Soomaaliyeed isu aamino in nidaamka siyaasiga ah uu noqdo nidaam dimuqraadi ah oo mar walba ku yimaada doorasho suuragal ah marxaladaas oo u shaqeysa doorashooyinka caalamka laga yaqaan ee qof iyo codka ah oo raacaysa nidaamka dawliga ah ee adduunka u dhaqmo sida loo maamulo doorashooyinka qofka iyo codka dabcan xilliga Soomaaliya maanta ku jirto oo dhulka badankiisa ama qaybo badan oo waliba gobolada koonfureed u badan ay al-shabaab haystaan iyada oo deegaano ka mid ah magaalooyinka dadka Soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen ama Soomaaliland leedahay waa goosanay iyada oo 30 sano khilaafaad hareeyay iyo is-aamin la'aan jirtay waxa aqliga saliimka ah uu sameeynaya dal kala maqan in la yiraahdo doorasho qof iyo codka ka dhacdo aad bay u adagtaa maxaa yeelay doorashada qofkii codka ah waxa saldhig u ah in ay si midaysan uga dhacdo dalka taasna suuragal ma aysan ahayn ma rabo inaan taariikh badan oo doorashooyinka sida la rabay ama danaha laga lahaa in loo maamulo aan dib ugu noqdo laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego qayb ka mid ah inay ahayd in dadka lagu maran habaabiyo in la yiraahdo qof iyo cod ayaan qabanaynaa dawlado badan oo dimuqraadiyadda lacag badan ku bixiyana ay u arkayeen in ay tahay achievement khaasatan madaxda markaas ama safiirada dalka u jooga ay u arkayeen inay dawladahoodii u celin karaan inay horumar ka sameeyaan waxyaabihii u joogeen oo ka mid ah xasilinta Soomaaliya iyo nidaamkeeda siyaasadda dhiskeeda runtii arrintaas Puntland si adag ayay uga hortimid iyada oo ku dhisaysa xaqaa'iq sax ah iyo waxyaabaha ay muhiimka tahay in hawshaas la qabto Puntland kaligeed ma ahan Soomaalida xoogeeda iyo isteediyada kale oo arrintaas way ka mideysnaayeen inay sidaas u qabsoomi karin muddo dheer oo arrinta lagu kala aragti duwanaa waxa markii ugu horeysay lagu qabtay shir Dhuusamareeb 1 oo madaxda xubnaha ka dawladda federaalka ay isugu yimaadeen si ay xaaladii jirtay u qiimeeyaan shirkaas gundhigiisu wuxuu ahaa in la helo doorasho la isla ogol yahay ayaa u ahaa aasaas ama base lagu dhisayo doorashada xilligeedana ku dhacda dalkana aan u horseedin qalalaas markii la yimid Dhuusamareeb 2 waxa ka soo qayb galay madaxda dawladda federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xilligaas jiray runtii waxa anaga nagu jirtay yadiilo waxaan gelinay waqti aad u fara badan khaasatan Puntland inay arrimahaas ay si sax ah u qabsoomaan meelaha khilaafka aadka uga jiray waxa ka mid ahaa Jubbaland caawa maadaama ay xarun cilmi baaris tahay waxaan rabaa waxyaabo badan oo xaqaa'iq oo qarsoonaan jiray inaan ka warramo ay dhici karto dadka qaybtiisa inay ka warqabin dadka qaybtiisa inay dhibsadaan dawladdan federaalka ah ee hadda xilligeedii dhamaaday 2018kii shirkii Baydhabo ay ku galeen waxa ay go'aansadeen in waan ka xumahay laba documentina waa laga saxiixay madaxdii markaa joogtay mid uu yahay nidaamka doorashada dalka
midna uu yahay resource sharingka midna uu yahay barnaamij socday oo la yiraahdo security architecture habka ciidanka Soomaaliya loo dhisay documents kaas markay dawladda gacanta ku dhigtay oo sidii ay rabtay ay u draft garaysay waxa uu soo baxday inay hesho saaxiibo arrintan la fuliyo waxa isla markiiba la go'aamiyay in isbeddelkii soo dhawaa koonfur galbeed isbeddel laga sameeyo saaxiibkay lafta garanaya hadda madax ka ah laakiin waxay ahayd isbeddel dhig ku daatay waxa ku xigay xaaf oo galmudug ahaa waxa aad la isugu dayay wadada la mid ah waxa baalashi laga rifay gudoomiyihiisii iyo ku xigeenkiisii waxa muddo socday khilaaf aad u adag iyadoo inta taagan tahay baan anigu kursiga looga taliyo Puntland lay doortay 26kii January oo ahaa xafladii caleemasaarka waxaan goostay maadaama aan ku soo biiray masraxii siyaasadda ana u jeeday cakirnaanta jirta inaan la imaado waji ay suuragal tahay Soomaalidu in ay marlabaad dib u hadasho oo wixii ka khaldamay ay saxdo oo ay wada saxiixa marto waxaan halka isugu yeernay dhammaan mas'uuliyiintii dalka madaxweynayaashii state-ka markaa jiray madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray prime ministeradii dalka soo maray xildhibaano wasiiro iyo cid walba aan isdhihi karna Soomaaliya wax tarbiya ka tahay annagoo curdin ah oo diyaar garow fiican lahayn ayaan dhabarka u ridinay in shirka baaxadda leh baarlamaanka labadiisa aqal madaxdooda halka aan isugu yeerno runtii fursadaas waxaan uga faa'iideynay inaan gogol u dhigno oo aan isku dayno inaan waxyaabihii jirnay xal uga raadino dadkii meeshaas joogay qaybtood maanta Puntland bay ku sugan tahay oo waxa kamid ah madaxweynayaashii hore Cabdiraxmaan Farool aan ka xasuustaa dadka intiisa kale inay maqan yihiin baa dhici karta inta kalena way maqlaysaa goob jooga ka ahayd runtii fursad qaali ah oo madaxdii markaas waliba fartu ku godnayd ee Jubbaland iyo Galmudug ahaa ee si garnaqsi leh madaxweynaha ugu soo bandhigeen waxa khaldamay iyo waxa la doonayay in la saxo nasiib wanaag dadkii kulankaas fadhiyay ayaa gaarkood u barqaanti kici doona madaxweynihii wadadii laga rabay inuu furo wada hadal nabadeed iyo inuu tanaasulaad sameeyo waxa uu qaatay wada taa ka duwan oo aan xal keenin markii la ismari waayay waxaan codsanay inaan lagu kala tagin laakiin ballan lagu kala tago oo bisha saddexaad ee sanadkaas shir kale la isugu yimaado magaalada Garowe si waxyaabaha madmadowga ee jira ee loo dhameystiro nasiib wanaag shirkaasi bisha saddexaad ma qabsoomin aragtidii ahayd in wada hadal loo sameeyo la sameeyo darteed wuxuu ku soo islaaday bishii shanaad in halka uu ka qabsoomo isagoo ku dhamaaday fashal taariikhdaas waxaan u raacayaa in la fahmo waxa maanta meesha yaallo shirkii dhuusamareeb haddaan ku soo noqdo labo khilaafkaas oo baaxadiisu ay kordhay aan ka sheekeynayo hore waxa lagu guuleystay in uu ka baxo madaxweyne xaaf xilkii ay timaado doorasho iyadana dhiig ku daatay waxa la isku dayay Jubbaland in isbeddel waliba xogtu sida ay sheegayso wax ma qarsoonee la rabay ciidamo aan Soomaali ahayn ka qayb qaadanayaan in lagu bedelo mowqifka Puntland aad buu wacdaa markii ay fashilantay arintaas waxa la isku dayay Jubbaland in la kala jaro oo gobolka Gada laga jaro oo ciidamadii aan dib ugu soo noqon doono qaranka loo adeegsado inay iyagu noqdaan kuwa fulinaya ajandahaas kala qaybinta state-ka Jubbaland shirkii dhuusamareeb 2
wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyay oo marka laga tago May 2019 madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo ku dhaxmara halka iyo anigaba si live ah wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyay oo aan isku aragno Jubbaland Dhuusamareeb waxaan yeelnay si gaar ah aniga iyo madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mararka qaarkood marka wax qaybta Soomaalida loo fiirinayo si gaar ah duruufaha jira ay noo hareereynayeen waxaan ka codsaday madaxweyne Axmed in uu ka tanaasulo kana hadal wax walba oo tirsanayo hore uu furo safxad cusub uu qaato nabad iyo heshiis uu madaxweynaha iyo marxaladan maadaama Soomaalidu ay daashay oo ay doorasho filayso inaan doorashada ka doorbidno inaan wixii tagay aan ka xisaabtano runtii waan uga mahad celinayaa wuu aqbalay isagoo culays badan iyo duruufo badan oo aniga aanan markaas garan karin oo isaga haysta uu dareemayo haddana wuxuu doorbiday inuu taa ka qaato madaxweynaha waxaan u cadaynay inaan si niyad sami ah oo dhab ah inaan ugala shaqeynayno dalka marxaladda uu ku jiro in laga saaro oo doorasho la geliyo oo aan gacan ku siinayno shaqadaas weliba si hoose si reernimana xataa waa ku darnay diyaar baan u nahay inaan kugu darno nasiib darro kulankii aan la soo xirayay niyad simidaas baan ku nimid dad badan oo Soomaaliyeed waa dhageysteen khudbadii ka dhacday Dhuusamareeb oo aan ka hadlay waxay ahayd khudbad muujinaysa inaan ka tanaasulno wixii hore oo tagay diyaar u nahay inay Soomaali israacdo u talaasulno madaxweynaha hore u socono meeshii aan ka sugaynay madaxweynaha in uu go'aanka nala qaato wuxuu ku galgashay khudbadiisii shirkii oo dhan wuxuu mugdi geliyay heshiiskii wuxuu markii dambe ku soo gabagabeeyay waxa uu la noqon doonaa baarlamaanka isaga oo dadka u muujinaya inuu qoslayo laakiin ay ka muuqato caraf fara badan ra'iisul wasaarihii oo aan u malaynayo kullu 3 sano barkii ay wada socdeen heshiiskaas dhab buu mooday dhinacaas ayuu nala qaatay intii dambe waxa ka muuqanaysa inuu diyaar u ahaa dib ha loo raaco khudbadiisina waxa ka muuqatay khudbad tasaaluxi ah oo uu arko in marxalad cusub la galo natiijadii noqodkiisa iyo baarlamaanka waxay noqotay in 7 daqiiqo ra'iisul wasaarihi xilka loo qaado si sharci darro ah dikraato ay soo baxdo lagu magacaabayo prime minister ku xigeenkii inuu ahaanayo ku sime oo san awood iyo xaq u lahayn oo dastuurka ku meel gaarka ay Soomaaliya ka hor imaanayso dabcan Puntland way ka hadashay laakiin dadku hadalka maalintaas waa dhageystaan laakiin wixii ka dambeeyay dib uma raacaan sida normska ah dawladaha ay u dhaqmaan diblomaasiyiinta qaybtooda ay garanayaan reaction xoog leh ka muujiyaan internationalku arintaas ay u dhacday laakiin waxa jira wax de facto la yiraahdo hadii laga gudbo dawladuhu shalay kama hadlaan maanta iyo bari ka hadlaan haddaad sharci darro ku timaadid haddaad inqilaab samaysid haddaad dadka leysid ugu dambayn adigu aad wax ka daba qeeliyo weydid adduunka adigu kula macaamilaya ana wax jira oo dadka siyaasadda ba si fiican u yaqaan marka dawladuhu ay la macaamilayaan maamulka ku xadgudubka sameeyay dawladuhu shaqadooda maaha police dalkan ilaalinayo dad kala rabo inay ilaaliyaan sharciga waa dadkiisa waa dadka Soomaaliyeed waa madaxdiisa waa shacabkiisa oo oranaya maya waa khaldantahay wixii aan ku heshiinay ma hadii aad aamustid de aamuskaas baa lagu la dhaqmaya waxa loo farsiranayaa aamusku inuu yahay ila raali ka tahay arintaas markay ka dhalatay oo anagu si public aan uga hadalnay oo runtii aanan raali ka ahayn inay saa wax u dhacaan haddana xukuumadda iyo dawladda markaa jirtay ee isku mid noo ahaayeen marka la dhaho habka macaamilka Puntland oo aan kala saarin waqtigeeda ayadana laga xisaabtami doonaa laakiin haddana sharci darradaas iyo ficilkaas raali kama aan noqon anaga maxaa yeelay waxa aan ilaalinayno oo aan rabno inaan dawladnimada ku dhisno waa shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn hadii la waayona
waxa ku xigo indhaheena hor jooga waxay noqonaysaa meeshii loo maray 19 in loo mari doono dadkana diyaar u ah mar labaad in uu galo struggle aan wax ku kalifay aysan jirin kii horeeto tabaabasho la'aan iyo aqoon darro iyo waxa ma dhici karaan ayaa sabab u noqotay laakiin maanta qarniga 22aad iyo khibradaas la yeeshay suuragal kama ahayn inay mar labaad ka dhacdo shirkaas markuu sidaa ku soo dhamaaday waxa mar labaad uu isugu yeeray shirka waxa lagu ballamay 15 in la isugu soo noqdo bishii ku xigtay maadaama ay wax dhaceen waxaan anaga codsanay in wixii dhacay wax laga yiraahdo markay u liidato xukuumadii meesha ka baxday oo mas'uul ka ahayd fulinta qorshaha heshiiska in la keeno waxa noo soo baxday inaan diyaar loo ahayn sababta xukuumadda loo ridana ay ahayd in waxyaabahaas laga hadlo oo si jajuub ah dalka doorasho iyaga u qorshaysan ay geliyaan kii saddexaad ma aanan tagin waxaan codsanay damaanaad sax ah oo cid walba og tahay in la yimaado internationalku markay ku guul dareysteen inay taa keenaan waxaan annagana ka gaabsanay inaan shir aanan garanayn wuxuu ku dhamaanayo oo aan ognahay wixii hadda ka horeeyay sidoo ku dhamaaday inaanan diyaar hadda u ahayn muddada kadib markay taasi dhacday wuxuu codsaday waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan si fiican ugu sheego marar badan waxa maqashaan Puntland waxay diiday in garow la yimaado wuxuu codsaday Axmed Madow halka jooga inuu halka yimaado dawladdan waxay aad u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo qabiilka ah oo runtii inay xoqdo ay aad u jeceshahay taas oo dadka aan dan ugu jirin qof mas'uul ah oo marxaladan jooga inuu qabyaalad u gurbaan tago isagoo og 30 kiilo sano soo dhaafay wixii dhacay runtii waa nasiib dar waxa halka ka soo baxday in la yiraahdo waxa Soomaaliya isku haysta waa niman daarooda garow ay ku soo shirayaan iyaga waxooda xallisanaya runtii waxna qabta ma ahayn wax Soomaali ay wada leedahay in la yiraahdo annaga kaligiina ka wada hadlayna maxaa yeelay dabinkaas mar hore wuxuu nagu geliyay dhuusamareeb markaan joogno saddexdan kaliya nala faqay annagoo moodeyna inaan xal u helin marka hadda maray dagaal mar labaad waa dhacasnimo yeelata waxaan codsanay meel madal ah oo la joogo inay noqoto inay Muqdisho noqoto waxa uu mar walba Muqdisho u diidaa waad ogtihiin waa meel dadkii qadiyadan ay wada khusaysay dhan ay goob joog ku yihiin waxaan nirayaa inay Muqdisho u noqdo dabcan internationalku oo mar walba garwadeenka ah waxay u arkeen logic waxaan tagnay kowdii iyo meelaha inayd baan filay September 2020 baan xamar ka degnay iyadoo magaalada xamar iyo dadka deegaanka jooga ay qarka u saaranta inay qarxado iyagoo fahmay dawladda tan inay doorasho rabin ay rabto inay ku darsato oo si xoog iyo jajoob ay ku joogto magaalada oo dhan oo cabursan oo mid la hadlay oo jirin ay qarka u saaran tahay inuu dagaal sokeey ka dhaco baan ka degnay ilaahay mahadiis dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo arka haday khaladka ka hor yimaadaan natiijada ka dhalan karta inay xarbi tahay xuruubtu markay dhacdana dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nugul oo ay qabyaalad isu bedeli karto iyagoo ka rabay baaqsadaan waxay u noqotay faraj imaanshaheeni waxaana daliil u ahaa sida wanaagsan ee dadku noo soo dhaweeyeen markaan u tagnay wuxuu yiri waxaan rabaa labadiina maadaama igu diideen garowe saddexdan kaliya shireen nimankii kale oo saaxiibadeen ahayna wuxuu yiri ha imaanina xamar maxaa banaankeeda jira anu inta halka tagin waa la hadlay waxaan qorqor baan la hadlay
waaraan la hadlay waara alle marka xamar ku sugnaa lafta gareen baan la hadlay waxaan la socdeen wax walba sida isu bedelayaan waxaan ka codsaday xamar markaan tagno inay noogu yimaadaan waxay yiraahdeen annagu iskama imaan karna hadduu madaxweynaha imaado yiraahdo waa imaanayna kulankii ugu horeeyay aan isku aragnay oo dadka qaybtiis inay ilaawsan yihiin baa dhici karta waa inaad dib u raacdaan maalintaan tagnay maalintii ku xigtay habeenkeedii annagoo diidan ayuu wuxuu iclaamiyay twitterkiisa la soo dhigay inuu shir jiro official ah shirkaas maan tagin maxaa yeelay heshiisku maanahay annagu waxaan nidhi shir gaar ah ama waxa unilateralka la yiraahdo umaan imaan halka waxaan u nimid sida mar walba lagu celcelinayay heshiis wada jir ah oo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha kamida ka ah ay u siman yihiin markii aan aragnay inuusan soo socon waxaan la furnay consultation hay-adihii dawliga ahaa mujtamacii dawliga meesha joogay iyo siyaasiyiintii kaleetay xamar ku sugnayd dhaqdhaqaaqaas siyaasadeed waan kula kulannay musharaxiintii xilka u taagneed ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka oo markaas xasan sheekh uun keliya uu ku joogay dhaqdhaqaaqaas waxaan la kulannay baarlamaanka aqalkiisa sare waxaan la kulannay madaxda baarlamaanka aqalkiisa hoose waxaan la kulannay safaaradaha jooga waxay soo dedejisay taas pressure ah in loo yeero madaxdii kaleeto dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado waxaan rabaa inaan hadalkayna hadal gadaal baa uga noqonayaa waa tanaasulaa buu yidhi inuusan talaasulin baan rabaa inaan idiin sheego oo uu marka hore aado waddo xiran oo ay suuragal ahayn in derbiga madaxa lala dhaco oo ku khasbanaado inuu dib u soo noqdo ninkii ka shaqeeya waxaan shaqaynayn aakhirka waxa weeye isagunbaa dib u soo noqonaya waxa ay noqotay in laysu yimaado waxaan rabaa maanta maadaama xalkii soomaaliyeed uu cakiran yahay inaan babliga u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya haddaan anigu been sheegayana waxaan rabaa inuu isagoo declare gareeyo dhawaa beentiis waa kulannay waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado isagoo ka xun inaan engage gareyno dadkii mucaaradka ahay magaalada jooga iyo dadkii kaleeto wuxuu yidhi maxaa ka doonteen dadkaas anaa marti ay ahaydeen caasimadii magaala madaxdii Soomaaliya haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii Soomaaliyeed ee qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay ku dhan yihiin weliba hal isxaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah ma waxaan leedahay arkinina oo kala xaajoonina xalka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhoobin waxaan taas suuragal ma wuxuu igu jawaabay dadka halkaas ka jooga waa dad iska qeylqeylinaya ciidan ayaan haysanaa wax naga qaadi kara wax ma jiro anu hadda waxa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday waxaan mooday wiilashii aan aqaanayo madaxtooyada joogi jiro hadda u badnaa reeraha kan deegaanka iyo dad noocaas war ciidanku soo ciidankaan aqaan ma beelbeesha ahaayo see wax u jiraan maya waa mas'uuliyad baa naga saaran dawladda gacan biraan ku qabanayna meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlayo 10 qof oo wax diidan waad aragteen baan u maleynaa meediya aan runtii waxay la noqotay wax mucjiso ah oo aan sax ahayn mar labaad waxaynu u kaliftay inaan war walaalow dadkan khatar ha gelin ani axmed waxaan yiri ma doorasho rabta hadda wuxuu dhaaway khiyaamay ma doorasho rabta annaga ku dooranayna walaalow balgal haddaad baahsa ugu bugtid annaga ku dhisayna dalkan ka daa meesha ku wadid khatar buu ku socdaa habeen dhawada soo wacay wuxuu yiri 17 September ma ogolaadeen marka ay tiri waa ku dhisayaa baan ogolaaday waxa ay raahdaa wada sax la timid haddaan ku leeyahay maxaa mushkil oo ku jirta hadii lagu dhiso laakiin markaasna waxaan ku lahaa war processka iyo doorashadaada iyo campaign-kaaga laba ka kala dhig processka waa lagu la wadaagaa dad baa kursigan damac kaga jira
oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay process ama campaign-kaaga iyo xodashadaada iyo waxa isku xirxiraysid de waa shaqadaada iyo hadda ha qaban kuma dhahay damacuna waa shay qof kastoo bini aadan ku jira hadduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas madaxda kale markaan aragnay waxaan ku niyadda ugu dejinay inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara heshiiskaas aan keennay oo sida runtii hagar la'aanta ah iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dawladaha federaalka ay joogtay xilligaas oo ra'iisul wasaare ku xigeenka ra'iisul wasaarihii waa uu diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro ilaa baarlamaanka aqalka sare markaan tagay cabdi qaybdiid iyo mawsuud ay qabsadeen iyagoo dhahaya daarood baatay ninkii nooga keen kursiga ilaa xol kala qarsan maaye waa uu diiday inuu magacaabo ilaa ay heshiis ay la gashaan aan anigu rabo heshiiskii baa si allaalay sidoo waxaan ku niri war doorasho qof iyo cod lagama gaaro doorasho dadbanna de waa la yaqaanaa wadadeeda waxa uu ku dhigay in wax laga bedelo maxaa rabtaa inaad ka bedeshaan marka wuxuu yiri waxaan ka rabaa ugu yaraan in laba meelood laga dhigo isagoo ula jeedo in gado doorasho lagu qabto oo Axmedow ku haleyn karin Ismaaciil waxaan irahayaha loo yeelo waxa kale oo waxay ahayd cosmetic aan badnayn tira markii hore ay dhaheen 300 weeye iyo midii taa ka horeysay oo 260 oo konton ko ahayd baa la yiri 100 iyo hal laga dhigo inta kale doorashadu waa doorashadii 2006 iyo harnaankii lagu galay 16 inta markii si la isugu raaco waxaan kala saawirnay madaxdii iyagana doonaysay doorashada oo qodob aad ugu deganaayeen ah in xisbiyo lagu galo ayaan waxaan niri hadaa xisbiyo idinkuna aadaan xisbiyo doorashada dad isma galayso xisbiyadu waxay imaan doontaa markii doorasho toos ah la aado idinkuna ka tanaasula negotiation kaas inta badan aniga galay dhinacyada u kala dab qaaday heshiis dawladii xubnaha ka ahaa iyo dadkii dawladnimada rajada ka qabay xukunka iyo cid walba iyo internationalki aan la wadaageen oo la isla qaatay buu ahaa qodbadiisi baarlamaanka wuxuu yiri Saciid baa qorqortay iyadana waa nasiib darro kale baashi hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi isma salaam jiray ismana arki jirin mana ogoleen inay labada aqal isu yimaadaan waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto waxaan ugu tagay Cabdi Xaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku xigeen waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay laqaan maanta Soomaali u hiiliyaan heshiiskan ay wax ka ansixiyaan labada aqal oo isdiidanaan ay is ogolaadaan mursal baan la hadlay waa isla qaateen بعد شدة وتعب وحالك كسر بعد نية سمان ضد كالصومالية دردن إيوه على الفنان كل ما ذا جارك عني يالني يستوى دريمة ينان أنجو ليش الدونه وحيلو ذا حقه وأركه ضل كان إني سهلنتها إنه دو مرات كسر نقض وهو يستعيدا يلعب يحقق ودنينا وميلو البوجو ويكون جرت بنتلا waxaan ku eray xirfad iyo xeeladaada hadda adeegsanaysa waa hawl adag ku taal laakiin process-kaas uu naga khaldamay hadda intaad process-kaas martid xeeladaada iyo xoogaaga ana xoog kulama talinaaye aad wax ku qaadaysa ani ilama aha inaan Soomaali xoog u qaadaysa garashadeeda laakiin wixii xeelad ah anigu hadda kuguma haysto waa ku furanta mar allaale markaan shirkii ka tagnay oo gudiyadii la magacaabay ayaa horta xaaladii la sheegay soo baxday gudiyadii la magacaabaa waxa ka soo baxay qaylo waxa kale oo ka soo baxay gado
ayaantii markaan tagnay 2 maalmood ka bacdi in ciidan kale hor loo diro waxa ka soo baxday niyad xumo heshiisku inuu ahaa wax la iska madmadoobeeyay maxaa yeelay hadduu heshiiska dareerayo Siciid baa iska qorqortay ma dheheen heshiisku warqad la iska saxiixay oo marxaladda looga gudbaayo un bay ahayd kriteeriyadii lagu heshiiyey habkii dadka loo xuli lahaa wixii oo dhan buu hareer maray markii aan kala hadlanay oo niri war sidatan wax laga bedelo wuxuu diiday in la isu yimaado wuxuu yiri heshiiskii waa dhacay 8 qof soo dirsada annaga niyad wanaagii markii ugu horeysay afartii ugu horeysay waan magacaabay afartii markii la magacaabay oo qayladii ay badatay oo dadkii musharaxiinta ay annaga naftirkeena nagu eedeeyeen inaan u daaroodaynay oo ninkii hoosta wax kala heshiinay oo wixii aan u sheegaynay oo ah process sax aan khiyaanay oo gudiyada soo baxay ee noqdeen niisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo xoog wadaniin iyo wax kale oo aan garanayn runtii annaga waxay nagu noqotay xaaje inaan ka jawaabnay aad u adagtay waxaan rabaa inaan inii sheego kulanka la hadalka isniinta aan sameyn jiray waxaan u joojiyay wax badan oo fool xun oo dadka niyadiisa xumeynaya inaan sheegan aad u diidana oo aan ogahay si u dhacaan maxaa yeelay nin weyn hadda meel soo istaagto xaqiiqada ka hadasha ama inaa ka aamusid waxa socday wuxuu damiirku isiin waayay sida waayaan dama la caadaystay ee in wasiilada la gaaro kaliya oo bulsho vulnerable oo iyada dhan u baahan in la dhiso loo danqado aan laga fakarayne xukun aan la rabin in bulsho loogu shaqeeyo sababta loogu orday ilaa hadda wax aan fahmin laay kamid tahay propaganda iyo qaab shaqo oo la aaminsan yahay inay suuragal tahay ragga mas'uuliyiinta xamar mid kamid aan weydiiyo waxaan eri war xoog iyo jajuub maxaad ku xukumi karaysaa wuxuu yiri al-shabaab badalkay ku xukunta oo sida al-shabaab haddaan noqotaan maxay tahay waxa raadinaysaa ilaan dastuurkeenu argagixisnimo iyo xoog iyo jajuub in dad lagu maamulo ma qoraay ummadda aqliga saliimka ana diyaar uma nolosha dabiiciga ana taas ma keenayso runtii waxaa ka soo baxay aragti aad u adag markii shirkaas uu istaagay oo dood badan laga galay waxaan codsanay in shir kale la isugu yimaado waa diideen waxa soo martay 7 bisha December shir la yiraahdo International Somali Partnership Forum oo xamar ka dhaca ayaan waxaan isnin waa fursad shirkaas aan lagu casumay markii aan madaxdii dawladaha iyo isla hadalna oo niri shirkaas aan isugu nimaano si aan ugu lafagurno waxa jira dawladii way joojisay waxay tiraahdaa ha imaanin internationalkuna si fiican bay ogyihiin habeenkii annagoo xirxiran baa la soo hadlo madaxweyne Axmed Qoorqoor xamar joogana waxa la yiri inta xamar ka tagtid oo galmudug tagtid suunka ka soo gal hadda xamar uu jooga suunka meel kasta laga gali karaa waxa la yiri xagga tago suunka xagga soo gal annagana ha imaanina waska aamusno waxa khilaaf ilaa wix kasta daa ka hayso khilaaf buu wadaabay dadka caamada halka fadhiyo oranayaan bal haday khilaaf dhalayso kaadi badan waa loogu gol badayaa baa la yiri bal iyadan aan dhowrno ra'iisul wasaariyaha halka yimid oo la soo diray intuusan imaan markay taas dhacday baan iri Qoorqoor hadda xamar isku arki weynay adiga garoway gumo madaxdu ay maqlaysaa been hadan ka sheegay markii la maqlay inuu halka imaanayo ayaa isagina lala hadlay waxa la yiri baaqo annaga tagin ra'iisul wasaariyaha halka yimid ra'iisul wasaaraha Qoorqoor ma uusan imaan ana imaanay buu yiri isaguna ha baaqdo halka markuu yimaadana habeenkii ugu horeysay wuxuu yiraahdaa 8 qof aan rabaa inaan ka qaato oo diyaaradda la raaco wax kale ma ka hadlaysaa maya marka 8 isiisid ka bacdi aan ka wada hadlayna waxa 8 hadda diyaarad kula raacdo anigu hadda ma hayo wixii damo dhacay anu ka hadli maayo halkaas hadda idinka goob joog ah bilata halkaas marka ay marayso waxaan mar labaad aad looga shaqeeyay in la xalliyo halka waxa yimid internationalka dad aad u far badan ay yimid
waxaan nidhi waa yahay madmadow baa jira waxbaan tabanaynaa haddaan wax tabanayno inta aanan doorashada hore loo gelin ha laysu yimaado oo tabashada ha lays dhegaysto xujadeenna waxay noqotay xujo viable ah ha la is arko ceeb maaha mogta war aan is aragno soomaaliya wada joognaa meel kale wada joogno internationalkii markay kari waayeen madaxweynihii uu yidhi arki maayo haddii 8 keenin oo bahash isjiidantay oo internationalka ay ku soo ururtay horta 8 keen iyo horta shirka qabo isagu ma tanaasul jireen sidaynu tanaasulno waxay anaga tanaasulno 8 baa hadana sheegnay waxaan niri shirka hadan xamar lagu qabto wuxuu yiri xamar lagu ma qabanayo xagee lagu qabanayo markaan niri xamar lagu qabto oo 8 soo saarnay buu isagoo waxba ogeysiin wuxuu yiri Dhuusamareeb iyo bisha meeqahay 15 ma qaban waxay heeday Dhuusamareeb baan qabanaa shirki oo la tashi una la gelin waxay nagu kaliftay annagoo xog badan oo og xaaladda Dhuusamareeb ay ku sugan tahay amni waxay kaliftay inaan mar labaad annagoo maalinta aan bixin habeenka ka horeeyay 12 hoobiye lagu dhuftay Dhuusamareeb inaan sacrifice sameeyo aniga wafdigii la socdo mar labaad haddana aan tagno kii joogay oo ku dhacday hadda waaba joogay laakiin kan la yiraahdo imaam ka war oo la leeyahay 10 kilomitir loo jira madaxda ila socotay dadkii la socday ka warqabay tension ku wuxuu ahaa iyo ciidamadiina la socday markaan meesha tagnay waxaan u tagnay madaxdii iyo madaxweynuhu iska qoslaayay anigu hadda ma tafaasiileynaaye inaan waxba dhicin loo malaynayo marka taloom waxaan isir wax oon ula kac loo tuuray ma ahayd waxa kan wax ka badan ilaa ma ogtahay waa inuu jiraa hadday wax dhacaan waa inuu jiraa tension security iyo diyaar garow ilaa saacida ka mid dadkii la socday ka warramaya mararka qaarkood waxa la classification waxa la sheegaa 30 sano kadib laakiin Soomaaliya hadana way ka bacdina sheegno we can't waxaan aragnay waa in la sheegaa laga aamusi karo shirkii Dhuusamareeb la isugu yimid haddana markaan aragnay tensionka dadka Soomaalida haysta iyo waxa aan ka baqayna mar labaad inay Soomaaliya ka dhacaan iyo kala taagnaanta jirta iyo anoo og sidoo u fakarayo oo inuu dalka xoog ku qabto siday la tahay mar labaad waxaan goostay mar haddaan imid issueski kala waa iska dhignay 3 issue waa lagu soo reebay 3da issue inaan kala soo noqon iyadoo xal laga gaarin labada issue laba kamid ah dadkii ka tabanay xamar bay joogaan in laga xajooday waa u diiday waxa ay hadii dadka kala diideen kaliya uma doodi kartid waxaan rabaa inaan wax yar dib u celiyo halkaas waxaad ogtihiin halka waxaan ku qabanay heritage oo xilligaas in anaga hoosti garayno runtii markii ugu horreysay Soomaaliya lagu qabtan ay tahay cadadka dadka imaan kara Soomaaliya markii la madaxda Soomaaliya imaanaysan aan garan karo culayska ay la imaan karto waxaan ka doorbiday inay halkaas fursad ku jirto dadka Soomaaliya isku arki karaan mar labaad wixii khaldamay lagu sixi karo aysan ka duwanayn go'aankii aan qaadanay 26 January 2019 runtii waxaan dawlad ahaan mishinada awoodda dawladda leedahay dhan u jihaynay in shirkaas uu qabsoomo muddo yar waliba iyagu nagu wargeliyay sidii la rabay inuu qabsoomo waxaan uga mahadcelinayaa bulshada reer Puntland iyo dawladoodaba inay si sharaf iyo karaamo leh ay shirkaas u qabteen waxa halka yimid dhammaan madaxdii Soomaaliyeed marka laga tago madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhowr qof oo cudurdaar ku maqnaa labada state kamida waxay noqotay fursad lagu wada hadlo waxaan qirayaa maanta madaxda halka timidna ay qiraysaa nimanka madaxweynayaasha hore ahaa iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharaxiintu in ay muujiyeen dabacsanaan iyo inay muujiyeen wax walba oo jira in la xalliyo inay diyaar u yihiin waxaan halka ka dhacay shirarka caadiga marka laga tago iyo gaargaarka ah shir
ay isugu yimaadeen dadkii dawladda matalayay oo ahaa 3 maamul goboleed prime minister ku-xigeenka iyo 2 speaker iyo madaxdii u tartamaysay xilka madaxweynenimada waxaana weheliyay madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole intaas waxay gar dhigteen inay u baahan yihiin maadaama si doorasho u galaan inay helaan process furan tala kuma haysano walow aan jeclaan lahayn inaan ka qayb galno laakiin kuma haysano waxaan rabnaa qodobada mugdiga iyo shakiga naga jira in laga shaafiyo shirki labaad wuxuu ahaa intii dawladda matalaysa gaar isugu nimid waxaa noo muuqata inay gar tahay doodoodu inaan ka jawaabno waxaa soo baxday jawaabta annaga aan siino inay kaafi ku ahayn iyadoo ay 3 maamul dawladihii xubnaha ka joogaan 2 speaker joogto ra'iisul wasaare ku-xigeenkii joogo waxaa halkaa ka soo baxday inaysan ilaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la soo qanciyo maahan inay tala kala jireen waxaan halka ka dirnay speakerka aqalka hoose ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweyne Qoorqoor inay tala ka keenaan xaggu ugu tagay meeshaan tala ka sugaynay madaxda halka waxay joogeen wax 2 way ku dhow inna shirkaas socday inna hawshaasi u joogeen ergada markii la dirana waxay dhaheen inta ergada noo imaanayso waa sugayna culayska ay leedahay la garan karo in annagana noo leedahay iyagana u leedahay in 2 week dad mas'uuliyiin oo protocolka ay leeyihiin u baahan inaad mareynaysaa inay marti noo ahaadaan sidaan u sugaynay inuu maalinta jimcada jimcay ku beegneed baan filaynaa noo yimaada habeenkaas xaflad baa Puntland lahayd waxa ay timid fariin inuusan imaan karin duruufo jira awood isaga ma aan wada hadal laakiin waxa ay shaqadii loo diray hadduu soo qabanayo imaanshaha ma aha caawa xafladeeda muhiim ahane biriba noo yimaada ama fariin kale oo sax noo soo diro isla habeenkii markaan shir ka soo baxnay waxaa la qabtay press conference lagu cadeynayo in doorasho la aaday dalkii meeshaan sugeynay jawaab shirka markaan ka soo baxnay baan warkaas maqalnay waxa la yiri clipka waa la hayaa laakiin lama sii deeraa ilaa biri maxaa loo hayaa waayahay maalintii ku xigtay ayaa la sii daayay isla subaxnimadii in dalkii doorasho aaday meeshaan talada sugeynay farsamooyinka doorashada dalka socda horta saasay u ekaayeen markay taas dhacday ayaa inaysan soconayn la arkay ayaa shirka dhuusamareeb dhashay laakiin ku talagalku wuxuu ahaa waxa la yiri labadaasna iska maqnaadaan 3 kala la qabanayaa iyaga imaan doona hadday imaan waayaan war ma hayaan xoog lagu keenay wararka aan helin wili anaga riyaan u haysanaa waxa wadanka ka socda shirkii dhuusamareeb baa yimid ku noqon maayo waa aniga ka sheekeeyay markii gada la soo gaaray ayuu dhaqaaq waa shirkii gudiyaa kala saar madaxweynaha u tagaani gada maxaa ka rabtaa Aisha oo kala shaqeeya markaan maalin iyo ziyaado nervous ah waxaan qabtay garan waayo aan arkay hadda inaan cid kale u maqanay aysan jirin ayaan waxaan goostay inaan si sacrifice arinta uga shaqeeyo waxa ay gado waxa ka rabtid Aisha waxa soo baxday in uu gado inuu isaga maamulo ay rabto waxa ay waayahay adiga maamul laakiin formalo horta waxa ay gado reerka ka dhalatay maanta wax qaran ma reexan waxay rabaa inay ka go'aan Jubbaland ma yiri anna ma rabo iyagana ma rabaan maxaa rabtaan marka inaan doorashadaas iyo maamulaan rabnaa waxa ay waayahay formula aad ku maamuli kartid gadana ay uga tirsanaanayso Jubbaland aan ka fakaro maxay kula tahay wiil ani markaas ilaahay baa waafajiyay qalin warqad ma haysan waxa ka soo shaqeeyna markaan arkay waxay akran yihiin
waxaa iri gado dib u heshiisiin baa markii hore la horta hala galo oo Axmed Madoobe taagnaa horta dib u heshiisiin maamulka la soo celi ciidanka hala saaro waa process dheer isagana oo I don't know sanad iyo ka badan qaadan kara waxaa iri haddii dib u heshiisiintu ay saa u adag tahay laba aan kala saarno Garbaharey in fikradaas marka halka joogno waa la develop gareynay Garbaharey issue iyo gado issue waxaa iri maamul gobol marka cid hawshaas fulinaysa awal ogeyn waxaa iri maamul goboleedyada hadii hawshaas fuliyaan oo iyagu intay u diraan guddi dib u heshiisiinta bilaabaan lana kaashadaan cid kasta oo ay khusayso oo aysan ku jirin maamulada ay ku jirin Jubbaland ay ku jirin arinta ka war waxaan qaadanaynaa waan iri qorshe ah in dib u heshiisiin guud la furo lagana bilaabo Garbaharey maadaama doorashadu socoto oo Garbahareyna aysan ka dib dhici karin doorashada kale oo caqabad noqonayso waxaan iri muddo bil ah Garbaharey waa lagu dhameyn karaa si loogu dhameeyo maayarka hadda jooga gudoomiyaha degmada hadda joogana waa laga qaaday kii hore Axmed oo laga tuuray oo intii la xirxiray oo waliba Etoobiyaanku xirxireen ay ka tuureenna isna lama soo celinayo Axmedna wuxuu taagay ka hal soo celiyo kaas sharciga iyaguna kan wada labadaba laga qaado mid community-ga isku raacsan intee keenaan guddigaas ha u dhiibaan warqadda marka ha soo qorto Jubbaland oo sidaa sharci ku noqdo midka hore waa la fiicnaatay waayahay buu yiri waxa ay shaqadaas ma ku shaqeeyaayo raalli ma ka tahay buu yiri curfi Soomaaliyeed baan raacay mareexaankii joogay Dooso Mareeb madaxweyne ku xigeenkii wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga aan u yeeray horta waxaan u sheegay prime ministerka waxaan u sheegay qorqor waxaan ku iri arrintan waa ay mudatay saanaan rabaa inaan u galo xeer kale ila dadkii dawladda iyaga wadanka madax ka ah ma ku xad gudbi karo waxa ay farsamo kale aan galaayay waxay dheer hadaa wax xalinayso waxba kama qabno iyagii waan u yeeray qaarkood waa ay eedeeyeen inaan maaragtay Axmed oo u hiiliyo waxaan ku iri eedaha noo dambeysay hadda aan xalin wadadaan arkaa in wax lagu xalin karo maxay la tahay runtii raggu aba ku kala qaybsanaan laakiin si unanimous wuxuu yiraahdeen waa ra'yi fiican waana kula qaadan waxa ay ila qaadateen madaxweynaha uu tago sheegay ana ballanta xataa soo qabtay waxa madaxweynaha inaan iyaga arkayna uu sheegay iyagana arag baa inta kuma ekaana waxaan la hadlay Cabdirashiid Janan oo jooga bolad xaawo waxaan ku yiri waxa aad raadinaysid waa degaankii maamulkiina xukumayeen oo xoogni laga saaray waa ogahay laakiin waxa ka maqan hadaa xoog ku soo ceysan kartidna waa wax la gartay hadaa xoog ku ceysan karna xaalad waa lagu ceysaday niyo bahasha siyaasad baan ku dhuganaynaay ciidamadan iyo waxa kan dad inay naga dhintaan muhiim ah ka daayay ra'yi siyaasadeed baan wadnaay waxaan ka codsanayaa haduu hirgalayo inaan la qaadin waayo Axmedoobe waa madaxii Jubbaland laakiin qadiyadu waxay ka dhex taaganta reer Gado oo waliba markii hoos loo sii fogo reer guri iyo wax kale aan garanayn u kala baxay qatarteeda leh ma garat oo is haysta waxana uu sheegay waxa is haysta hadii aad dhihileed ogaadeen meesha muuba jooga Gado waxa isku haysta waa raaskaagi dagaalka dhacay dadka effect gareey waa iyaga isagina waa la hadlay waxaan kaloo la hadlay madax kale oo Axmedoobe la socotay oo fartaa kamid yahay iyo wasiiro iyo gobornarkii Gado Axmedoobe oo dowladda Jubbaland u ah oo meesha jooga kulligood waxaan ku qanciyay inay arintaas qaataan markii isagu aqbalay waxaan u tagay Axmedoobe waxaan ku iri wixii badnaa oo sheegi jirtay oo carada ka muuqatay yadii raggaaga inaan liqdaan raba tan inaan la qaadataan anoo kiligay aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland baa wada tagnay wuxuu yiri hadaad xal keenaysaan dadkii aad ay khusaysan aad la hadashay sida aad sheegaysid oo Cabdirashiid waa u sheegay culayska aad ku haystana qayb ana ka dejiyay dadka waa engage garay wuxuu yiri waxba kama qabo habeenkii waxaan ku seexanay birisu wax shirku inuu dhamaanayo oo la saxiixayo draft gudiyaan saaray farsamo ah waxa la diyaarinayo subaxnimada maalintaas waxa in la qorsho ahaa in la diyaariyo communique subaxdii markaan imid
buu aniga iyo axmed qoorqoor wuxuu yidhi waa in raba waa u tagnay wuxuu yidhi wixii aan xal isku ogeyn ma shaqayn karto nimankii gada jiray reetolkay ahaa qorshahaas ma ogola warqad axmedooba saxiixayo ama wasiirkiisu ma qaadanayaan waxaan ku idhi madaxweyne shalay reer gado intay ninkaana xukumi jiro mudday dawladda ka tirsanaayeen oo hadda qayla kama jiri jirin qayladan waa khilaaf iyo qorshahaaga hadda aad u qanacsan tahay dadkaas waxaa ku filan waddadaasaan qaatay hal raaco mayuu yidhi waxaan u baahannahay inaan 2 wiig ka bacdi isku soo noqonno waxaan ku idhi amay taas suuragal ahayn markaan arkay inay kala taagtaagan tahay ra-iisul wasaaraha nala joogo waxaan idhi bal halkaan noogu hakiya annagu aan shir aniga iyo ra-iisul wasaaraha iyo axmed qoorqoor aan meel wada fadhiisanay waxaan ku idhi arrintan xal bay u baahan tahay anuu horta waxaa idhi madaxweynuhu xujo maahane ani waxaa ii soo baxday heshiiska in la saxiix maro laakiin intii aan wadi karnaan wadayna axmed aad buu wuxuu uga xumaaday in mar labaad galmudug shir laysugu yimid inuu burburo runtii waana painful maxaa yeele deegaanka iyo dadkeedaba ceeb bay ku tahay waxaan idhi dadaal intaan wadi karnaan wadayna subaxdii 10 meelahaas ahayd ilaa habeenkii dambe aroortii 2 miya mise 1 aniga isaga waxaan ku jirnay dadaal inaan qancino madaxweynaha أنا وحني أحمد بان اسكو دينا قنعيه adiguna madaxweynaha soo qani dadaal badan baan sameynay mar kaliya waxa socon weeday in guddigu uu magacaabo oo aysan Jubbaland magacaabin ama dawladda ay magacaado maahan wax kale ma jiraan buu Axmed oo shirkaas intuu neers ku noqday uu yiri iska kayfa saxadii ninkii loo talinayaa aan hayo maanta ninka isku wareegay meeshan oo ku caajisay meediyaha waad aragtay maamulada shirku ka carooday baa la yiri ma aysan jirin waxa dheeraada time markii uu baxay oo isku daynay madaxweynihii waxaan soo marsiin weynay degmada Garbaharre maayarkeedii inuu farax ka qaado oo noo adkaato aniga maamulo maahan cid kale maamulo shir luqad saas shirkiina qorqor waska kala tagnay gurigu igu yimid habeenkii anigu disappointed baa noqday wuxuu yiri waxaan rabaa inaan shirki la badbaadiyo sida lagu kala tagin maxaan kula qabtaa Axmed Madow ila aad weyn waa israacay Axmed waan u tagnay waxaan ku yiri waxaana jiray maxaa tala wuxuu yiri hadee laba mid ani ii keenu yiri gado Jubbaland ma aha waxba kama qabo yiri ciduu rabo magacaabo madaxweynaha warqada soo diro inuu isaga maamulkiisa si muaqada oo maamulay haday Jubbaland ka tirsan tahay wixii ugu yaraa oo aan aqbali karo wax weeye gudoomiye degmo oo annagu aan soo select gareynin ya dadkii deegaankana aysan doorashooda sida caadiga ku soo bixin oo sida golayaasha deegaanka loo sameeyo oo cid kala keentay waliba dadka meesha joogo keenayo waa dadkii madaxweyne Cabdullaahi Loyalka oo ahay gudaha joogay anu xataa mar hoos waa ula hadlo waxaan ku yiri warninka imaanaya adiga keensan ay xataa hadii wili aragtina maamush formulada aan raacan ilaa annaga si kale u magacaawno ma leh dawladda dhaxama magacaawdana ceeb bay ku tahay nidaamkii federalismka meesha ka baxay guddi aan dirnayna sharci uma haysto inuu magacaabo waxa u baahanahay inaad arinta sida laga daayo habeenkii marka Axmed kan nimid oo nimankii kalena lagu daaleen waliba madaxweynaha Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu madaxan celinaya dulqaadka ay muujiyeen meeshiiba inay shaqahiina soo baxdo maxaa yeelay niman daarooda iyo nin marti loo yahay ba ordaay gada kaliisay wax leeyahay horta dalka la rabo leeyahay hal xaliyo dadka ay sheegayaan Garbaharre xalin weyn ina ogaataan raba wuxuu yiri waa tagay waxaan ilaaday madaxweynaha haduu yiri waa tagay anagu farq kuma dhigi karnaa markaas wadana wuxuu damcay sida loo tagay in anaga la qaadno warmatiyood la soo saaro waxaan ilaaday waxaan dhahnaa anaga ma garanayno inaan ku eedeynana ma rabno oo dhaano isaga diiday marka
waxaad tiraahdaa wada hadalaa socda shir damaa la isugu soo noqonayaa nin ayaantan soo baxo dubba lagu sheegaya habeenka hadlay wuxuu ku wareegay waa la sheegay waa aragtay cajaa'ibka adduunka maalin waxbaa la arkayaa dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha Hargeysa waxay yiraahdaan baa la yiri wax aadaanka hore isu kaya keen markuu dubba dhawaaqaas ballanta noqotaa la yiri saqda dhexe wax uu ku hadlay aan la garanayn marta dhawaaq la istaagay masaa'ibka soo baxay habeenkii waa wax badan oo aan hadda aan garanayn oo dhuray madaxweynuhu waa tagay intii uu joogay waxaan ku iri war madaxweyne soo ma ogid 8 February inay soo dhowdahay oo deadline-kii doorashada soo dhow yahay maxaa dhacay yiri waxaan iri soo ma haboon inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro processka uu socdo warqadii Xasan Sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dawladdan ay tahay dawlad aanan waxyaabaha masiiriga oo qoran tahay waan u maleynaa internetka ku aragteen oo muujinaysa inay dawladdan ay doorashada maamulayso qor warqadii xataa koobiyan wataana oo ajendaha noogu jirtay lama sii gaarin waxa gadaan garbahariya dhaaf weyn warqadaana qor horta warqadii iyo markuu maqlay 8 February oo wuxuu yiraahday aan waxaan isleeyahay danigayga soo waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu proof gareeyo inay 8 February wax la jirin wuxuu yiri 8 February wax la jirto dastuurka iyo ogol waxaan dastuurka inta ka ogol yahay baarlamaanka ba midka bedel midka maxaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga horta meel hadda iska manaanaanays ma jirtee kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahday shuruucay ansixinayaan ceeb weeye dawladnimada ceeb ku tahay aflagaad weeye adiguna suuragal maaha intii Xasan Sheekh gartay ma garan weyd inta samee waa baxay aradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay oo tuu baarlamaanka yiri Siciida waxa iska qorqorin jiray aniga waxaan isleeyahay ninkan marna lagu xijinayo waa daarood leeyahay marna leeyahay maamul goboleedka u horeeyay oo u weynaaba tihiin roolkaaga qaad saas odayada iyo dadka wax garadka iyo simada oo dhan markay la soo hadlaan maaragtay la leeyahay warmaandow Soomaali meel ku kala tagaysaa ka talin waxaan isri bal intii karaankaaga dadaan waa tagay 8 markii dhaafay oo maalin iyo laba iska maqanto shaqadii iska socoto way soo wacay waa wada hadalna haye 8 maxaa dhacay yiri waxa ma dhicin haye sideed waa u jeedaa inay waxba dhicin ama nimanka ragga hurdaan oo markoo sidoodii ka caamayro gidaarada ka daatan waxyaab kale habeenkii dhow markii waxa dhaceen shalay miyaa soo wacay wuxuu waxa ay tiri weeyr nimankii haway gidaarada ka soo laa wax soo daatay ma aragtay weeyr waxa yar ma arag ciidamadan oo dabaabaadka wadana ma ogeynay horta gorgorkan la sheegayo anigu waxaan ku maqlay maalin la yiri galmudug la keenay oo dagaal ka socday gada in la geeyana waa maqlay goobta saddexaad ay ka dagaalameen waxay noqotay daljirka dahsoon horta ina saas ina u kood gareysaan aan rabaa haram cad iyo gorgor meel kale ay ka dagaalamaan ma leh aniga waa research garay waxaan ciidanka intee leeyahay waxa la sheegay ciidamada Turkidu tababaray iyo kuwa waxa la isku dardaro ciidan hadda aniga aan sheegay dad ka nixinayo tiro badan oo dabaabaad wata hadda hal maalin shabaabka ma aadin wadada afgooy iyo xamar isku xirto xiranta hurwa lama tigi karo war gorgorkan haday dadka wax u qabanayaan jidadka maxay u furwaayeen niman meelay ku jiraan oo cid arag oo ani hadda wax lagu akhriyo ma garanayo hadda awal waxa la soo saas ma yeeli karto hadda dadka reer Puntland saas dhahan laakiin ogaada Soomaalida naqaanimaa ilaa al-shabaab si ka dhigto waa la arkay Soomaalida Soomaa inay isqarxiyaan oo dadka qeyracaan nimankan aniga sida loo tababaray shaki weyn ay jira marka wax naxariisa oo ileeyihiin ma jirto horta dalka meesha ku socdo waxaan rabaa inaad si fiican u fahamtaan dadka waxa xun looma sheego balad laakiin waa qarsan weyn runaan sheegaya
maxaa yeelay haddaan ka digi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo uu ka dhaco oo qabaa'il la isku laayo oo xoog la isku sheegto oo dalka dabaabaad la jiirsiiyo annagaa dambiilayaal noqonayno nimanka internationalkii hadda dhahay 17 September hal la ixtiraamo 17 September alamtaraas oo dhaaftay 19 February ka dambeysay habeenkii markaan doodayno wuxuu dhahay inda cadde oo aniga waxa ka yeersiiyay hadda aan garanayn ilaa maanta runtaan iska sheegayaa ayaantii horena wuxuu yiri adsabaan ku tukanayna maalintii dhaweydna waxbuu sheegay labada marba waxbaa dhacay ani ay doona cid u shaqeynay laakiin reality-ga marka loo hadlo waxaan ku iri bal dal jirka dahsoon ninka wuxuu raba hadho cid ka yeersiisay ilaa madaxdii intay hadashay dhiilay dawlad ma jirto madaxdu waa hadlaysay maalintii ka horeysay meeshay maraayeen waxay lahaayeen mudaharaad biis fulaan rabnaa mid nabadeed aan rabnaa ninkan wuxuu yiri hadaaba samaysay gartay kii maalinimadii dhacay oo ra'iisul wasaarihii 3 sano iyo barka ra'iisul wasaaraha ku ahaa oo calankiisa u lulaaya xabada lagala daalay maxaa ku fasiraysaa wuxuu yiri cidii sharciga ka hor timaatay talaaba laga qaaday horta madaxweynaha meesha noo fadhiya literally kullu ari waa geesinay intaan hubo laakiin geesinimadaas tii la rabay miyaa mise mid kale miyaa idinka ka jawaabi doona maxaa yeelay geesigu waa midka xaqana ka hadla xumaantana dadka gacanta ka qabta maaha nin ku dhiirada wax cirib dameedkeeda uusan garanayn runta marka inay sheego waxa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo hor leh iyo qax hor leh dadku waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa ka codsanaya dadka reer Muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan godin yahay ima goysan haddaan gobolkii kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa deegaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaalada ha kala saarinina dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxay heshiis ku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii walwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye magaaladii xamar hadii laga wiswisay oo laga shakiyay oo la yiri cuntadeeda ha cunin oo waa sunba ku jirta oo waa lagu dilayaa war ummad tarar ku jirta ma al-shabaab aan ka baqnaa mise filo Soomaaliya aan ka baqnaa horta reality-ga aan sheegay maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanayay mid al-shabaab sakeeyay wax difference u dhaxay male maalin walba waxaan ku jirnaa trap dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxa la geeyay inaysan hadli karin ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra'iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyay inuu dalka Soomaaliya madax ka noqdo oo Sheekh Shariif ahaa ee madaxweynihii xilka ku wareejiyay ka horeeyay xurmada u qoori waayay oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo marna iyagoo balweyne aadi rabay laga hor istaagay maantana iyagoo hotel jooga lagu xabadeeyay ra'iisul wasaarihii u shaqeyn ayaa dhaxas waxa dhigi jiray ra'iisul wasaaruhu muxuu u hadlay ayaa wixii jira u sheegi waay soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nin ya waxa dhigi jiray muu wax cadeeyo alku markuu yimid rag kale waxay muu hadlo warninkaas ka daayay marka waxba jireen sababtoo haddaan wax ilaahay waxaan xishoonin haddii ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeda leedahay runtii waxa Soomaaliya ka socda wax laga aamusi karo maaha waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyo iskala saarin dictatoriya inay ka hor yimaadaan iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan wax nin leeyahay ciidamada ana iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambeysay wallahi inaan been ka sheegin wuxuu yiri garow hal yimaado ma imaanaysan la fahna uga baqnimo wuxuu yiri dhul samareeb ruuxa dhul samareeb hadda kan inuu xabada ka dhacay ma ana waxba kama dhacayaan ugu dhahay I don't know iduu og yahay macnaheedu waxay tahay ku wax soo tuurna waa yaqaan literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo waxa meesha soo socdo
niman international la yiraahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo HVM oo ku haya waddamadooda waxay u qoraaciga jirta laakiin aniga waxaan inii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku matali karin anigu aadi maayo habraha iyo ciyaalada meelaha la sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana mu umaleynaa inuu daarood harb jiiday ruuxa inii sheegaya ha ku kalsoomina nin daarood har u jiiday aan ma soo arag xataa maraacan nin har u jiiday ma soo arag marka caadifada intii la iska daayo dardaarankayga ugu dambeeya waliba saaxiibada kale oo Soomaalida waa necab tahay Puntland aan kula dardaarmayo Puntland waxa aan lahaa marna aysan aqbalin nidaam Soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaraam bay ka tahay waa in waxa Soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saaranta Soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan ba ugu balanbala badan hadhowna aan la wadi karin dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyay ku siray iyo niman xoog wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habra aan warhayn oo TV-ga iyo aan fiirsan waxaas oo sheekaya dadkiina mas'uuliyiintu halka jooga waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf hadda aamus lahaydeen oo nila ka xaysan lahaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo hadda damiir yeelanayd horta idinkeena taala wixii dhacay 80maadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadnay waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta Puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lama taabtaan raadinta Soomaali federaal oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro haadaan in lagu dhacaano ku talinay Soomaali aan jecelnahay haadaha lagu dhaco ku talinay waxa la rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan oo wixii qornaal ixtiraama yimaadaan waxaan qabaa xoogga waxa saartaan Puntland iyo jiritaankeeda inaalisa wa salaamantiin wa salaamu calaykum waxaan iga codsan lahaa waa daalay inaa su'aal bi weydiinaysaan u maleeyana waxaan qariyay marka raali lahaad aad iyo aad marka hore sheegnay barnaamijku su'aalo ma lahan session madaxweynaha dadka kula hadlayay marka intaasaan kusoo koobaynaa madaxweynahana waa umad celinaynaa kasoo qaybgalayaashana waa umad celinaynaa habeenimo wanaagsan isku duubnidiina daayartiyo haweenko isku duubnidiina darajadan ku